kusoo dhawaada TV-ga Qataros Group qaybtiisa beenta iyo barabagandada ee Facebook. Waxaa maanta ka dhacay magaalada Facebook dagaal aad u fara badan oo ka dhacay waalka nin lagu magacaabo Saacid Axmed Cabdikariin oo ku sugan wadanka Norway. Wiilkan oo lagu magacaabo Saacid ayaa waalkiisa waxa uu ku soo qoray gacaliso waan ku jeclahay. Kadib waxaa dhacday inay comments ka bixiyaan dumar gaaraya 8425 gabdhood oo Soomaali ah. kadib ay dhalisay muran iyo isqabqabsi iyo maseer badan oo ka dhaca waalka wiilka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Saacid Cabdikariin. haddaba waxaa la isu weydiiyey ama mar aan mikrofoonka la dhex qaadnay shacabka beenta badan ee ku sugan magaalada Facebook ayaa noo sheegeen in arrintan ay sababtay wiilkan inuu ahaa nin aad iyo aad u shukaansi badan gabdhaha ku sugan Facebookna aad u shukaansada. taasi ayaa dhalisay mid walba inay iska dhaadhiciso waalkiisa inay wax ku soo qorto una maleyso in iyada uu jecel yahay. mar aan wareysi la yeelan qaadi ku sugan maxkamad ku taala wadanka Sweden ee magaalada Malmo ayaa inoo sheegay oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Fidij ayaa inoo sheegay in arrintan ay noqotay arrin aad iyo aad u xasaasi badan aanan weli doodeeda ay dhamaanin balse maxkamadda ay appeal siisay dadkii dacwadaha iska lahaa loona furi doono dacwadooda markii la xiro website-ka lagu magacaabo Facebook oo annagana aan u naqaano magaalada Facebook. warkan oo weli oo inooga soo diray magaalada Norway wiil lagu magacaabo Maxamed Sugow oo ku magac dheer Majel Karid ayaa faahfaahin dheeraad ah inaga siiyay balse waxa uu ka gaabsaday in aan warkiisa la soo deeynin haddii la soo deeyay ka imaan doonaan dhibaatooyin aad u fara badan taas oo la xiriirinayo in gabdhaha qaar ee jecel wiilkaasi ay asxaab ama isku dhalinyaro ay yihiin isagoo ka cararay dhibaatooyinkaas warkii annagana waa aan qarinay maadaama aan nahay idaacad ama TV ka madax banaan arrimaha barbalemka iyo dagaalka iyo xanta iyo beenta iyo isdilka iyo rafaadka iyo jibiska iyo shumiska iyo qaar kale badan. TV-ga caalamiga ee Qataros TV qaybtiisa beenta iyo barabagandada iyo hololobta tani inta barnaamij midkan lamid ah oo been abuurisa aan la kulmeyno waxaan idin leenahay soo bari dhafarkan iska yareen.